بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، إن شاء الله تعالى ودرسي شنات كتابك ما تحديث للحفظ وعشرك قبل عوانا حديثك سدعية ونات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. حديث أبا هريرة لقوريي وعبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وحولي صحابي: ما عاب النبي نبي ما عيبين صلى الله عليه وسلم طعاما عنطو قط ولجيس نبي محمد عنطو الله صادقي أما عنطو الله دياري ولجيس ما عيبين معناها يدوحة ويحاك مشيقين وي وأنا الدأبي يدبي عند النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم وغندو أنا بني آدم كه waxaa laga yaabaa in adiga waxaway waxaadan ku faramarxin waxna aanan kaa galin lagugu sadaqaysta inaad wax ka sheegtaa suuragal ah. nabigana sallallahu alayhi wasallam dabeecadiisa waxay ahayd markii cunto loo keeno waxaa dabeecadiisa ahayd in ishtahaahu akalahu, hadduu jeclaystana nabiga wuu cuni jiray sallallahu alayhi wasallam, wa in karihahu tarakahu, hadduu nacbaystana wuu isaga tegi jiray. markii inaad wax ka sheegto oo cuntadii lagu keenay aad wax ka sheegto da'bi ma ahan, da'bi islaamka ay leeyihiin ma ahan. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dabeecadiisna ma ahayn. waxaa ka mid ah nabi maxamed dabeecadiisa xishoodka. waxay leeyihiin ragga soo guuriya nabi maxamed siiradiisa wuxuu u xishoon jiray sidii gabar udub ah oo qolkeeda dambe ku jirta say u xishooto uu ka xishoodnaa nabi sallallahu alayhi wasallam. wax la weydiiyeyna weligiisa ma dhihin maya. haddii inta wax la weydiiyo nabi maxamed uu aamuso waxay garan jireen saxaabada inuuna haynin, bay garan jireen isagoo diidan la-da ka orday. maa caaba annabiyu nabiga ma ceeweyn sala allahu calayhi wasalam طacaaman cunto qatu weligiisa cunto loo soo dhigay nabi maxamed waxoo kama sheegin. cusbadaa ku badan iyo saliidaa ku badatay iyo xoogaa waa gubtay iyo xoogaa xaaladiisa okay maani, waxaasoo dhanba waa edebdaro. in ishtahaahu hadduu jeclaysto nabi maxamed ayle waxawy cuntada la qownaatana akalahu wuu cuni jiray, wa in karihahu hadduu nacbaystana tarakahu isaga tegi jiray. xadiidkaa marka waa xadiid muttafaqun calayhi ah, bukhaari iyo muslim baa xadiidka isku waafaqay. xadiidka labaad can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala, rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi: xujibat innaaru naarta waxaa lagu xindhaabay oo macnaheeda ay tahay waxaa lagu wareejiyey bilshahawaati waxyaabaha nafta ay jeceshahay, wa xujibat iljannatu jannadana waxaa lagu xeendhaabay bilmakaarihi waxyaabaha nafta ay necab tahay. xadiidka laba darajuu ka kooban yahay. wuxuu ka hadlayaa waxa waaye nafta iyo waxay goosatay iyo waxay guddo. bini aadamkana hadda waxa waaye mar walbaba naftiisaa la raaciyey. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay: wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la amaaratun bisuu. qisadii nabilaahi yuusuf calayhi salaam wuxuu yidhi nafta xumaan bay dadka fartaayo aniga nafteeda waxawaaye daahiri maayo, maxaa yeelay nafta waa mid xumaan farid badan. marka xumaantaasay u hoggaansan tahay oo naf iyo shahbo iyo shaydaan baa mar walba qofka xumaan ku rido. saa darteed nabi maxamed sal ly slam wuxuu ka cabirayaa naarta iyo jannadii wuu kala cabiray oo wuxuu leeyahay: xujibat innaaru naartii waxaa lagu xijaabay oo xeendhaab iyo wareeg loogu sameeyey oo lagu dul wareejiyey bishahawaati waxay nafta jeceshahay. oo naftaada waxay jeceshahay markaad iska raaraacdo oo ay ka mid tahay waxaweye xoolaha dado oo lisaga cuno, macna dara lisaga cuno, ama waxaweeye xaq dara lisaga cuno oo kale, beenta iyo xanta, barobagandada, waxyaabaha awaamirta lagu siiyey oo laga boodo, waxaasoo dhan naftu way jeceshahay. naftaada ma jeclo inaad 5 salaad tukato, naftaada ma jeclo inaad bil ramadaan soonto, naftaada ma jeclo inaad xoolahaaga wax ka bixiso oo zake iyo sadaqa aad ka bixisid. naftaada marka way necab tahay oo nafta waxay jeceshahay mar walba inaad wax adiga xumaanta inay kuu jiiday jeceshahay. xumaantaasna waxaa lagu xeendhaabay naartii baa lagu xeendhaabay. xujibat innaaru naarta waxaa lagu wareejiyey bishahawaati waxa shahawaadka oo nafta ay jeceshahay, zinada iyo tuuganimada iyo beenta iyo xanta iyo xoolaha waxaweye xaaraamta iyo waxyaabahaasoo dhanba waxaweye nafta waa lagu xeendhaabay. waxaweye naartii baa xeendhaab looga dhigay. saad u raacayso isaga raamsanayso naftaada ay kugu hogaaminayso, shahwo kugu hogaaminayso, naar bay kugu tuuraysaa way. wa xujibat iljanna jannadiina waxaa lagu wareejiyey bilmakaarihi waxyaabaha nafta ay necab tahay. waxa nafta ay necab tahay maxaa ka mid ah? waxaa ka mid ah inaad salaadii tukato qabowga intaad soo kacdid oo salaada subax masaajidka imaadid naftaada ma jeclo, hurdada aad kasoo toosto
nafta ma jecla hal bil ama 30 bil inaad soonaato waxa weeye biyihii iyo baadkii inaad ka reebtoonto ma jeclo. naftaada ma jeclo xoolaha adiga aad bixinayso, xoolahaaga aad kusoo rafaaday ood kusoo dhididay ood soo shaqaysay inaad bixiso sadaqayso nafta ma jeclo. marka waxaasoo dhan haddaad nafta ku qasabto oo 5 salaadood masaajidka aad ku tukatid oo waxa weeye wanaagga dadka aad fartid wixii lagu amray aad la imaato intii aad awoodid nafta idin nacab aad ku qasabtid ku tirin garaysid ugu dambeyn waxaad aadaysaa janna tagaysaa wa hujibatil janna jannadiina waxaa lagu wareejiyay bil makaarihi waxa nafta ay nacayso saasuu nabiga ilaahi sallallahu alayhi wasallam. marka xeer daabyada waxa waaye waxa ka horeeyo janno inaad gasho waxaa ka horeeya inaad naftaada qasabto, naar inaad gashana waxaa ka horeeya inaad naftaada raacdo. naftaada markaad raacdood xumaanteedii waxa ayada ay damacdo dhanba afarayta min taqada ilaahu hawaahu waxaad ka warantaa mid naftiisa ka alla yeeshay ilaah kale ma laha naftiisa u rabbi ah naftiisa waxay bartuu sameeyaa un. qofka noocaas oo kale wuxuu aadaya waa cadaab iyo naar iyo jahannamo uu aadaya way. qofka naftiisa celiyo oo xakameeyo oo waxa weeye waxay rabto ka celiyo oo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray ku tirin gareeyana jannu aadaya qofkaas. muttafaqun calayhi waa xadiidka xujibat الnaaru naartii waxaa lagu wareejiyey bishahawaati waxyaabaha nafta ay jeceshahay wa xujibat الjanna jannadiina waxaa lagu wareejiyey oo lagu xindaabay bilmakaarihi waxyaabaha nafta ay necab tahay. muttafaqun calayh. xadiidka 10 ugu dambeeya an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam qaala nabiga wuxuu yidhi idaa qulta lisaaxibika idaa haddii qulta aad dhahdid lisaaxibika saaxiibka haddii aad dhahdid yowma aljumucati maalinta jimcada maalinta jimce haddii aad saaxiibkaaga ku dhahdo ansid aamus walimaam walxaal way waawda walimaam walxaal alimaam imaamkiina yakhdubu uu khudbaynayo faqad lagowta waad laqwisay. maalinta jimcada markuu imaamka soo fuulo mimbarka uu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullah aadaankana uu dhaco uu bilaabo khudbadii inuu akhriyo ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina markuu isku soo taaga haddaad saaxiibka dhinacaaga fadhiisa xawaayo saaxiibka biljambi baa laga hadlaya saaxiibkaad adiga saaxiib wada aheedeen ood sirta wada kaasan jirteen ood wada socoteen maaha qofka markaas masaajidka kula fadhiyo dhinacaaga fadhiya midige ama bidixa fadhiya haddaad tiraa warniyow naga aamus adigaa dembi ku jiro oo soo balanta ma ahayn in xumaanta la reebo. man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi soo ma ahayn. hadda waxaa lagu yidhi xataa haddii asiga uu hadlay asigii dambaabay bay adiga ha ka daba dambaabin. xadiid kale waxaa kusoo arooray mansaxa qofkii waxa waye quruurux masaxo faqad laga wuu laqwiyey qofka tusbax warfiyo wuu laqwiyey qofka waxa waye mobilkiisa ku ciyaara asigoo khudba la akhrinayo khudba ma lahan falaa jumcata lahu wax khudba usugnaaday ma laha. marka qofka waxaa la rabaa inuu dhagaysto khudbada jimcada inta imaamka uu khudbaynayo waa inaad dhig taraaricsan maxaa yeelay salaada jimce waa 2 rakacadood labada kale salaadii duur soo 4 ma ahayn haa labada kale xagee gashay khudbaday ku jirtaa labada kale khudbada dhagaysigeeda la geliyay marka khudbada aad dhagaysanayso waa qayb salaada ka mid ah salaadana hadal looma ogolo marka salaadii way khudbadii way buraysaa khudba la'aan baad soo istaagaysaa waajibku wuu kaa dhici laakiinse ajirkii khudbada ma lihidi way macnaha. idaa haddii qulta aad dhahdo lisaaxibika saaxiibka dhinacaaga fadhiya haddaad ku tiraahdo yowma aljumucati maalinta jimcada ansid aamus haddaad dhahdo walimaam walxaal alimaamu imaamkiina yakhdubu uu khudbaynayo hadduu imaamka una khudbaynaynin waad hadli kartaa mitaalaan intuu waxa waaye fadhiya labada fadhi intuu udhexeeyo waad celin kartaa. imaamkii baa khudbeeyey wuu fariistay xogaaga yarka oo uu fadhiyo haddaad tira miyu aamus sheekada way badatay laa ba'su bi laakiin waxa waye walimaamu yakhdubu imaamkii baa taagan oo hadlayo maxaa adiga ka hadalsiiyey faqad lagowta markaas waad laqwisay oo xumaan iyo cantara baqash waad la imaatay buu yidhi nabiga sala allahu alay wasalam. xadiidka asigana waa muttafaqun calayhi. marka aad taa looga digtoonaada aad baa loogu badan yahay khudbada inaan waxa waye macno badan aan laga yeelin. qof baad arkaysaa khudba ayadoo la akrinayo telefon isaga hadlayo waa idib darro waxa waye iyo waxa waye suu akhlaaq wey waa sunnadiyo meel looga dhacay waxa waye waa maxaa la yidhahdaa masaajidka sharaftiisii qiimihiisa oo meel looga dhacay khudbadii oo la qiimo dareeyey bay noqonaysaa. marka qofku waa inuu aad u tirin gareeyo uu dhagaystaa khudbadaasi waxa laga hadlaayo waa inaad dhegta iyo dhugta iyo dhaayahaba aad isugu dartid oo aad waxa waye aad ugu fikirtid maxaa yeelay waa ciidul usbuuc dadka islaamka halkaas maalin oo jimcaha isugu yimaadaan jimcahaas marka waa in aad loo qadariyaa qofka uu sharafaa asigana uu ilaashada ajarkiisa uu ilaashadaa. nabiga sala allahu calayhi wasalam marka wax badan buu ka dhigay ajar fara badan buu ku jiraa. marka hada wabillahi tawfiiq 10 intaas ku soo gaabinayaa waxaan noo xiga darsigeennii 6 subhanaka allahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk la ilaha illa anta la sharika lak lahu al mulku wa lahu al hamdu